بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. waxaan halkan ka gelaynaa casharkii labaad ee tafsiirka qur-aanka ee suuratu lbaqara. qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina wixii kafaruu gaaloobeen qaar ka mid uhu sawaa'un a andartahum inaad ayaga u digtid am mise lam tundirhum inaadan u diginu sawaa'un laba siman weeyaan calayhim korkooda ku siman. maxaa yeelay ugu siman yihiin laa yuuminuuna haddamaba rumaynahayaan ama u dig ama ha u digin. gaaladii marka qaar inay rumaysay waa caddaan waa qaar ka mida marka waxa loo jeedaa. khatama allaahu waxaysan marka u rumaynaynin buu ilaahay yidhi khatama allaahu ilaahay baa wuxuu daboolay oo sharooto iyo alxan u saaray calaa quluubihim quluubtooda korkooda buu daboolay. meelaha ay wax ku garan lahaayeen baa ilaahay dabool saaray. wa calaa samcihim maqalkoodiina iyo mawaadicihii meelaha maqalkooda ku jirana wuu daboolay. wa calaa absaarihim ayaga aragyaalkooda korkoodana waxaa ahaaday gishaawatun dabool nooc ka mida oo weyn baa ahaaday aragyaalkooda. wa calaa samcihim baa lagu waqfinahayaayo calaa quluubihim ku cadfan. wa calaa absaarihim gishaawatuna waa jumlo bilaabanaysa. wa calaa absaarihim aragyaalkooda korkoodana gishaawatun dabool baa ahaaday weyn oo nooc daboolyaalka ka midka oo aysan markaas waxba la arkaynin. taasaa ilaahay waxay keentay buu yidhi inaysan iimaan yeelan. meelay wax ku fahmaan baan la arkinin. qaarkaas ilaahay ogaaday inaysan weligood iimaan yeelanin, fahmi mahayaan waxba. walahum buu ilaahay yidhi waxay ayagu leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin. cadaabkaasoo cadiimun weyn awood leh. weynanka maadaama jidhka loo isticmaalo wixii marka waa wax asagii lagu shabahahayo yacni awood leh, cadaab awood leh. wa min annaasi halkaana wuxuu ilaahay ka bilaabahayaa oo aayaddana lakugu sheegayaa dadkii qaybtii saddexaad oo munaafiqiinta ahayd. qaybtii muuminiinta ahayd daahir iyo baatinba iimaanka kala ahayd baa lasoo sharxa. waxaa lagu soo xejiyey qaybtii daahir iyo baatinba gaalada ka ahayd. qaybtii saddexaad inay jidho buu ilaahay marka nebiga suuban u waxyoonahaya, muuminiintana ku baraarujinahaya. markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wa min annaasi wa jamcun xayn iyo koox min annaasi dadka ka midkaahu man ayiladii mid weeyaan yaquulu dhahaya. amana wa min annaasi ama wa bacdu nnaas dadka qaarkood bacdu nnaasi dadka qaarkood qaar dadka ka mid ah baa jiro oo man ayiladii kii a yaquulu dhahaya. wa min annaasida khabar muqadama lagama dhigahayo. haddii khabar laga dhigo waxay noqonaysaa wa min annaasi dadkay ka mid yihiin man yaquulu kuwa dhahahaya waxaan soo socda. faa'iido yeelan mayso saa inay dadka ka mid yihiin awalba waa la ogaa. dadka miya awal baysan dad waxaan ahayn jin aysan ahayn. waa baraarujin laysku faa'iideynayo man taasaa khabarkii ah. wa min annaasi jamcun jamaaco oo min annaasi dadka ka midkaahu man ayiladiina kuwa weeyaan manku mid weeyaan yaquulu dhahahaya. taasaa jidha yani ogaada macnihi soo baxay. maxay leeyihiin aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay wa bilyowmi maalinkii alaakhiri dambeeyo qiyaamana waan rumaynay. walxaal bayna saas leeyihiin buu ilaahay yidhi maa hum ayagu aysan ahayn bimu'miniina kuwa iimaan yeeshaba iskoodaba iimaan kuwa uu ka dhacba aysan ahayn. mar hore iyo hadda iyo marna aysan iimaan ahayn. laba arrimood su-aalood baa marka meesha soo geli kadha. maxay ayagoon iimaan lahayn u sheeganayaan iimaanka? waa qodob. midka labaaduna
iimaan la'aanta maxaa ku kallifay oo iimaankii la diiday labadii baa laga jawaabay wuxuu ilaahay yidhi waxa ku kallifaya iyagoon iimaan lahayn inay yidhaahdaan iimaan baan leenahay yuqaadicuuna allaha ilaahay bay khiyaanahayaan oo inay dhagraan sidii dhagar wax dhagrahaya ula mucaamilayaan ilaahay والذين كوينا ويدكرهيان آمنوا مؤمنين تهانا ويدكرهيان تاسا waxay ku kalifaysaa iimaan ay salahayn inay sheegtaan inay dadka dhakraan oo ilaahayna kula macaamilaan sidii wax dhagrahaya islaam halayna ka soo qaado halayna nabadgeliyo islaam halayna ka soo qaado qaniimada wax halayna ka siiyo islaam halayna ka soo qaado halayna ikraam saasay u xeeladaysanayaan وما يخادعون بإلهي رمنا أي دكرهيان إلا أنفسهم نفتو دما هنعد كلا أي دكرتو وحقول بيسا يعني مجدو ما دكرهيان ماشا دكرتو أي كدن بينيسا وأو نفتو دو إن يدون كانوا كعبوبان آخرنا كعقامان عد كلا توحك قادم حيان وما يشعرون إلهي منا أي درين سنويري dhagartoodu in ayaga ku soo noqonayso ma dareensana ee maanta ka faa'iideysay في قلوبهم آيضاننا وحي جواب تاي سؤاشي كليتو وما هم بمؤمنين إيمان ما أي لهم باليري إيمان لأنتم هاوكيني في قلوبهم بو إلهيري أيغا قلوب تودا باوحا كسوغان يميليه أي وحكا قران لهايين مرض جرو باكو سوغان qalbigoodii marka awood ma leh sidii cidii jiranayd uusan awood u yeelan karinin ay wax ku fuliso baa qalbigooda jirka ku jidhaa nifaaqnima ku jidhaa oo aysan la awoodinin inay marka xaqi ay aqbalaan fazaadahum allah ilaahay wuxuu marka u ziyaadiyay ayaga maradan jirba ilaahay u ziyaadiyay maradkaas hore laba macno noqon kara marad waa la yaqaanaayo waa in xanuunkii xissiga ahaa markii xaqiiqadiisa lagu fasiro waa in uu qofku uusan meeshii xanuunku ku dhacay uusan awoodin wadiifadiisii hore markuu fiyoobaa u gudan jiray inuu guto uusan awoodin xanuunka marka xaqiiqiga waa lagu fasiri karaa oo fi quluubihim waxa ku sugan ayaga quluubtooda maradun jiro caadi ah ku sugan waa xanuunsanaysa quluubtooda xanuun baa haya xasadnimo ay qabaan bay la xanuunsanaysaa marka waxay arkayaan nicmada muslimiinta badanaysa waxayga soo deganaya nabiga shaanigiisu sii kor noqonaya arkayaan wixii marka qalbiga xanuun xisiyo ka haya fazaadahum allah marka saa ilaahay maradan jira ilaahay marka u sii siyaadiyay toodii marka wuxuu noqonayaa nicmooyinkii muslimiinta ee nabiga loo galayaa sii badanaya xanuunkooda marka sii badan xisiga ama in la yiraahdo fi quluubihim waxa ku sugan maradun baa ku sugan ضعف baa ku sugan oo xaqii xanuunkii macnawiga ah fazaadahu waxaanaysan rumaysnayn markaasay ka shakisan yihiin qalbigoodu marka si toos ah wixii uma aqbali karo fazaadahum allahu maradan jira ilaahay u sii badinahayaayo shuruuc kala ilaahay sii jireynaya takaaliif hor allah baa la soo dejinaya ayadana markaasay sii dhibsanahayaan dhibsigoodii sii badanaya walahum waxay leeyihiin cadaabna way leeyihiin buu ilaahay yiri cadaabkaasoo aliimun la xanuujiyay cadaabka laftiisa la xanuujiyay cadaabkii inta uu cadaabnimo ka qabo asagii baaba xanuunsanahaya oo kaarhaya maxaad moodaa cida lagu cadaabay ka sii daran bima kaanuu inay ahaayeen yukadibuuna kuwa nabiga beeninaya darteed bayna cadaabka u leeyihiin qiraa waxay tahay bima kaanuu yakdibuuna inay been sheegayaan daraadeed markaas oo maadina masriyal ilaahay markuu qolada baraarujiyay inay jiraan sababtay iimaanka la muujisanayaan ay salahayn sheegay iimaanka sababta ah ku xambaartay la'aantiisana sheegay buu wuxuu ku baraarujiyay waxyaabaha qabaa'ixdooda oo foosha xun ay ku kacayaan si looga digtoonaado dhaqankooda oo kalena aan loo yeelan buu ku baraarujiyay oo saddexdan aayadood xiriirta markaasuu ilaahay wuxuu yiri wa idaa qiila hadii lahum ayaga lagu yiraahdo kuwan munaafiqiin dhahaya iimaan baan leenahay aan muuminiin ahayn la tufsiduha halaynina fil ardi dhulka fasaadinina hadii la dhaho
oo maxaynan ku fasaadin gaalnimada iyo iimaanka dadka aad ka hor istaagaysaan yacni macaasida muujisa la muujinahayo ardada ha ku fasaadinin gaalada aad muxuu ahaaye asraarta nebiga u gudbinaysaan carada ha ku fasaadinina gaalada aad mucaamalada dabacsan aad iska helaysaan oo si fiican isugu heshanaysaan ha ku fasaadinina saas haddii la dhaho intaasu fasaad bay keenaysaaye qaaluu waxay leeyihiin innamaa naxnu anagu musluxuuna kuwa wax hagaajinahaya uun baan nahay ee wax kale malihin annagu kuwa wax hagaajinahaya keliya baan nahay sifo kale ma lihin markii sifaadka loo fiiriyo fasaadka ashaqaba kuma lihine keliya waxaan ku aruursannahay inaan wax hagaajino oo aan isu soo dhow gaaladan waxaan isugu dabcinaynaa dadkaan isu soo dhoweynaynaa waxa aan muxuu ahaaye macaasidan muujinteedu annagu macaasi muujin kama wadnee waxaan ka wadnaa maaragtay yaan layni dhibsan muxuu ahay dadka isdhex gala alaa innahum buu marka ilaahay yidhi ayagu war hooy ayagu waxaad ku baraarugtaan ayagu humul mufsiduuna kuwa wax fasaadinahaya uun bay yihiin kuwa wax fasaadinahaya ayaga uun weeyaan walaakin laa yashcuruuna laakiin bidaalika kaama dareensana dareenkii baaba ka maqan intay macaasidii ka qaalib noqotay nifaaqi baysan dareenba lahayn waxaa dareemay tii labaadna wuxuu ilaahay yidhi waidaa qiila lahum ayaga haddii lagu dhaho aaminuu rumeeya kamaa sidii oo kalena u rumeeya aamana ay u rumeeyeen annaasu dadku iimaan u yeesheen asxaabu nebiy sala allahu alay wasalam nebigasu iimaan oo dhan maaha iimaan waa muujisanahayeen ayaguba iimaankii waa la qayday marka dadku oo ah nebiga suuban asxaabtiisa say iimaanka u yeesheen oo kale u yeesha iimaan yacni ikhlaas leh oo qalbiga iyo afka waxa laga sheeganaya iswaafaqsan yihiin saas haddii lagu dhaho qaaluu waxay leeyihiin anu'minu ma waxaan rumaynaynaa kamaa sidii oo kale miyaan u rumaynaa aamana ay u rumeeyeen assufahaa'u kuwii fududaayoo caqliga yaraa say wax u rumeeyeen oo kale miyaan u rumaynaynaa oo dadkan muslimiinta ah oo qolada markaa ay ka hadlahayaan oo warka ay ku qarsanayaan bay saas ku leeyihiin munaafiqiinta kuwii fududaayoo caqliga yaraa jaahiliintahayoon fiirsan ee iyagu niman madaxahay u badnaayeen kuwana munaafiqiinta ah marka dadkaa liiliito fuqarada hoose fiihiinta say u rumeeyeen oo kale miyaan u rumaynayna alaa innahum buu yidhi ilaahay ayagaba hum sufahaa'u kuwa caqliga yar ah oo fudud ayaga unba ah walaakin laa yaclamuun laakiin waysan daalika kaa ogeyno si dhaba haysan u baarinoo xogtaasaysan uun ka daba tegin oo ka fiirsane ayaga weeye kuwa fudud oo caqli yarada haysan xaaladda saddexaad oy haddana qubxiga saddexaad ay ku dhaqmahayaan baa aayaddaana ilaahay ku sheega wuxuu ilaahay yidhi waidaa laquu hadday la kulmaan oo is arkaan kuwa saas dhahayaa alladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaayoo muuminiinta hadday la kulmaan qaaluu waxay leeyihiin aamannaa waan rumaynay iimaan xaqiiqi ah oo qalbiga naga jiraan rumaynay ee awalba inay iimaanka afka sheeganayaan hor baa loo soo sheega midkaan markaana ay sheeganayaan waa midkaas waidaa khalow hadday keliyoobaanna ilaa shayaadiinihim maca shayaadiinihim shaydaanyaalkooda macooda hadday la keliyoobaan kuwoodii shaydaanka ahaayoo madaxda u ahaa shayaadiinta shabahay hadday la keliyoobaanna oy la cidloodaan oo meelay isku xan ku samayn karaan ay tagaan qaaluu waxay dhahaan innaa anagu macakum adinka miciinaan nahay adinkaan inla jirna oo haddaana la jidhaan qoladan maxaa marka u lahaydeen iimaan baan leenahay innamaa naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa ku jeejeesahaya un baan ahayn waa ku cayaari wuxuu ilaahay ugu jawaabay allaahu ilaahay baa yastahzi'u bihim ayaga jeejeeskooda ka abaalmarinaya ku ciqaabaya wayamudduhum ilaahay ayagana wuu sii xoojinayaayo waa u sii kordhinayaa fii duqyaanihim xadgudubkoodaas ay xad dhaafeen baa ilaahay u sii siyaadinaya yacmahuuna xaalayhiin kuwa wareersan oo ra'yigoodii meel quman uusan ku dhacaynin baynu ilaahay usii kordhinaya ulaa'ika buu yidhi marka ilaahay kuwaasu lasoo sheego sifaadkaa ku sifaysanu
الذين كوي ويان اشتروا سو إبسدين وسو بدل قاتين الضلالة بعد يوبد إيوه رمتان وضدي لقد رموه بيسو بدل قاتين وسو إبسدين بالهدى هنونكي بيكو بدلين ويكتغين فما ربحت ساسي تهي مركا ما أيسن أو فما ربحت أيسن ربحنين اشتروا ديكو عدف سلد أحيد أولئك كواسو الذين كوي ويان اشتروا الضلالة بايدة سو إبسدين وسو بدل قاتين بالهدى هنونكي بينكو بدشين أو فما ربحت أيسن ربحنين تجارتهم تجارة دين أيسن ربحنين ويا كواسو وكوي انتي بادي ان سو قاتين وهنونك تغين كو خسارون تجارة أيسن ربح سمين وفائدة أيسن سمين ويا وما كانوا من أيسن أهانين بو إلى هير مهتدين كوهنونين ما أيسن أهين فيما فعلوا وحي سميين ما أيسن كوهنونين أدون كان تجارة دي ربح أي سميين أو مسلمين تأي كل جرهيين أدون كورت فايدون ما كانوا إلى هيدين كسواتهم يلا أيقون ويهوجين آخرنا هنون ما أيسن هيرين الدنيا آخرة بوقصين بالهير hormarka wuxuu noogu soo sheegay oon soo marnay inay suuradan 4 aayadood u horeysaa ay ka hadlaysay dadkii muuminiinta ahaa oo daahir iyo baatinba muuminiinta ka ahaa labada aayadood oo xigtaana inay ka hadlayso dadkii gaalada ahaa daahir iyo baatinbana gaalada ka ahaa inta ka dambaysana ilaa rubuc maqradu yacni ay ka dhammaanayso inay inta kale ku saabsan tahay oo labadii ظاهرك أي باطن كودو اسخلاف سنة مركاسو هل كان إلهي وحو يري إن الذين كفروا وحا هل كان لو كفرقي هل كان هرطا لغو شاقي كفرقا ماددي سو وحا ينكسو تشيدابا لي وأسطر وأسطرتان وحلا أسطر كفر وأسطر اللهم كفر عنا سيئاتنا إلى ذنوب تيضاف وأسطر بمعنى كو وحا لغو مقعابا سيدي أعجب الكفار أو كليتو كما ثال غيث أعجب الكفار نبات الكفار مركز محل قوضا وكوي مرها إن باوحو مرها بمحو دولك أي قلين هيان بالوغو مقعابي كو أسر هيان الكفار dadkii beeraleyda uu muxuu ahaay ajab gelin haya asturkaas marka la asturo waxa la asturo baa guud ahaan loo isticmaalaa asturkaas marka nicmada markii la asturo nicmada lagu galo aad ku shukrin weydid waxaad ku sugan tahay asturitaan iyo kafr iyo asturitaan wax la asturo nicmadaas marka aad asturaysid ood qiran weyday ood ka amal hayn weyday way kala heer sareysaa marbay waxay noqonaysaa nicmadii alla uu ku sameeyay oo adiga dhan ku abuuray nicmadiisii uu ku nicmeenaad inkarto tiraada allah ba ma jira tiri markaas maxay tahay waa kufru muxuu ahaayay tawxiidkii nicmadiisii baad inkirtay nabinimadii baad inkirtay shareecadii baad inkirtay intaas mid inkirtay waa qaayadii ugu dambeysay kaas marka waxa la yiraahdaa waa kufrun oo fi diin ba markaas u noqonaya ama waxaad asturaysaa waxaas wax ka hooseeya baad yacni nicmada ka soo baxaysa ka soo bixi waaya kaasuna waa jisaarnimada waxa anagu nidhaahno laakiin labada maada waxa loo kala isticmaalaa qaaliban ba ayagoo isku maada ah markuu kufrigu diinka yahay sida tawxiidka iyo waxa la midka ah waxa loo isticmaalaa iyo macaasida iyo waxa la midka uu yahay waxa loo isticmaalaa al-kufru marka uu yahay midka nicmada lagu jisaaro kaleetana uu yahayna kufraan baa loo isticmaalaa innadiina waxay keenaysaa waa tawkiid xarf tawkiid kuwaan marka uu ilaahay yiri waa kuwii marka gaaloobay waa kufrigii xagga diinka ahaa nabinimadii bay inkireen shareecadii bay inkireen tawxiidkii bay inkireen kuwaasu waxa ilaahay isku mid ah buu yiri inaad u digtid iyo inaad u digin waa isla mid oo iimaan marna yeelan mahayaan ama u dig ama ha u digin iimaan yeelan mahayaan gaaladii marka saas kulli ma wada noqon kada alladii waxay ka mid tahay alladina asmaa'ul mawsuul ku siyaqul umum siiqooyinka caamka faa'iideeya alladina kuwi waa kuwa kasta buu ku dhaca wadci ahaan maanta caamkaasu sidiisa ma lagu dayn karaayo gaalo oo dhan ma saasay tahay waan gaalo islaamin intay mawcidada dhigaysa waa islaamta waxaa marka soo baxday inuu yahay caamkaanu caamun maxsuus waa caam qaar gooniya laga wado
qaarkaasi marka isku khilaafeen mufasiriintu kuwa laga wado wuxuu marka mufasirkaygu asagu yidhi waa ka abi jahlin wa abi lahabin wa naxwihima abu jahl iyo abu lahab iyo kuwii la midka ahaa weeyaan oo ilaahay uu ogaa inaysan weligood imaan yeelin baa nebiga laga quusinaya maadaama lacallaka baaqicu nafsaka calaa aathaarihim waa kii ilahay yidhi naftaadaad ku halaajinaysaa si ay u iimaan u yeeshaan kuwaasaa marka nebiga looga raaxaynhayo lahaa ka quuso ama waa ciday rabaan ha ahaadeena gaaloo dhan qoladii muxuu ahaaye aan ilaahay ogaada inaysan iimaan hor aysan dib dambe u yeelanaynin laakiin uun gaaloo dhan kuma dhacayso indaarkuna waxa weeyaan waa ka hoos nooga fasirahayee indaarka waxaa la yidhaahdaa buu yidhi muxuu ahaaye aliclaamu maca takwiifin waa meeshaas dambe walindaaru iclaamun maca takwiifin waa jalaalka kore waxaan sheegaya waa digitaan laakiin wata cabsiin wata waxbaa iclaam waxbaa lagu ogeysiinaya waana wuxuna wax cabsi wata yacni dhiilo war dhiilo lahaa laguu sheegay waa indaar baa la dhahaa sawaauntu marka khabar hormaraa laga dhigahayaa andartahumna intii laga soo dhalaaliyo misr baa waxaa laga dhigahayaa mubtade am lam tundirhum tiina waa ku cadfanta waxaysan iimaan la yeelanaynin waa licilmillaahi minhum ilaahay daalika kaas inuu ka ogaaday cadamul iimaanka falaa tadmac fii iimaanihim iimaankooda ha damicin oo aayaddan marka maxaa laga wadaa tayiisuhu sala allahu calayhi wasalam min iimaanihim iimaankooda nebiga in laga quusiyo wa iraaxatuhu min indaarihim wa cilaajihim la tacaalidooda in nebiga laga nasiyo looga raaxayo khatama allaahu marka halkan wuxuu ilaahay ku sheegay sababta aan kuwaas wax iimaan dambaa looga rajiyey waa jumladan ku sheegay kaasuu ilaahay wuxuu yidhi khatama allaahu calaa quluubihim quluubtooda ilaahay dabaca calayhaa quluubtiibuu ilaahay daboolay wastawsaqa waana adkeeyey daboolka u saaray falaa yadkhuluhaa khayr wax khayru ma gelhayaan quluubtu marka muxuu qalbi yahay qalbiga waa ximin jirka ka midka ah oo xabadka ku dhex jira oo asanowbariyu shakli geedka waxaa shakli sanowbarka la yidhahdo qaabkiisoo kale u samaysan geedka kaasu markii bini aadanka loo fiiriyo lale waa la daboolay qalbigooday wax ku fahmahayaan qalbigay wax ku fahmi waayeen cadkaas ma loo jeedi karaa maya sababto cadku wuxuu ku yaalla xoolahaba waa ku yaalla waxaa marka laga wadaa buu yidhi markii bini aadanka loo isticmaalo waa jismun latiif qaa'imun bilqalbi luxmaani hilibkan qalbigan hilibka ah wadnahan hilibka ah jismi ku dhex jira baa laga wadaa oo ah latiifo muxuu ahaayey wax ilaahay uu bixiyey oo qofka uu wax ku fahmo culumta ay ku qormayso oo kaasaa loola jeeda cadkaanu meel kastuu ku yaalaabi xayawaan oo dhan markaasuu dabciga waxaa la yidhaahdaa dhowr siba waa loo isticmaala khatmiga in waxa la tiimbareeyo la shabeeyo waa la dhahaa dee warqad baa qaadaysaa tiimbara qad qaadanaysa waa ku dhejinaysaa daabac ama khaatam dabacadiina waa la mid kow shay ama waxaa kaloo loo isticmaalaa warqad baad intaa qortaad bashqad gelisa bashqada soo ama xanje ma marisid ama wax kuma dhejisid khatmiga saas waa la dhahaa macnihii marka muxuu noqonahayaa quluubtoodu shay aan loo tegi karin buu noqday oo aan wax ka hoosayaan intii la sharooteeyo la alxamay meeshay wax ku fahmi lahaayeen baan wax gelayoo dabadda uga yimaada lahayn wax fakarahoo dabadda uga soo baxayaan aysan jirin wa calaa samcihim maqalkoodiina ilaahay wuu daboolay ay mawaadicihi bimeelaha maqalka falaa yantaficuuna bimaa yasmacuunahu min alxaqi xaqa ay maqlaan marka waxba ku dheefi mahayaan wacalaa halkaasaa marka ku joogsanaysaayo wacalaa absaarihim aragyaalkoodana waxaa ahaaday kishaawatun gidaa'un dabool baa ahaaday cadiimun weyn oo tanwiintaa tusinaysa falaa yubsiruuna alxaq xaqii marka arki mahaya waxaa la yidhi aayadaha maxaa intaan loo khaas yeela marka wainamaa khasa allaahu tacaala haadihi alacdaa'a bidikri xibnahan waxaa ilaahay sheegidda uu gooni yeelay liannahaa turuqu lcilmi wax ogaalka wax la ogaado wadooyinka loo maraa waa intaan qalbigoo fahanka araggii iyo maqalkii falqalbu maxalulcilmi qalbigu wadnihii macaanidaa ilaahay geliyey waa meesha cilmigu galo dariiqa uu cilmigii loo maraana waa ima samaacu maqal wa ima muxuu ahaaye arru'yatu arkitaanka marka meel wax uga soo yimaadaan male walahum waxayna leeyihiin buu ilaahay yidhi cadaabun bay leeyihiin cadaab marka muxuu yahay cadaabka waxaa la dhahaa buu yidhi iisaalu lalami xanuun in la gaarsiiyo ilaa xayin cid nool in xanuun la gaarsiiyo ma intaas keliya maahane hawaanan wa dullan dullayn la dullaynahayo iyo liidnaantiisa la liidahayo darteed baana loo gaarsiinaya
تاسها قدرت الميل بدن بينغا أنفع دونتا تعريف كاس إن الحيسي تفسيرك أنت قصون فإلام الأطفال والبهائم مرك حولاد حنوجنيسا حرور بد حنوجنيسا ليس بعذاب ما أهم بكاس عذاب لما مثلا ويدبنيسا كان أو كليتو أما هذا أسقي إهانة يمنا وما قادنا هيا وحان عقل إهانة وحي وقعة ملئ ما أهم عذاب عذاب إليه عظيم وين عظيم هو ضد الحقير شيء يسن وليته وليد إليه أصل كيسو waxa weeyaan an tuusafe bihi al-ajraam jirmiyaalka in lagu sifay shayga jirmiga ah oo qirada jismiga jirka iyo dhagaxa iyo waxa soo kale macaanidana waa lagu sifeeyaa sida halkan oo kale qawiyun daa'im عظيمك iyo kabiirku ma isku mid ma mise huwa fawqa al-kabiir mise عظيمku kabiirka waa ka sareeya sa عظيمku yuqaabilu al-haqiir haqiirku asagu ka soo horjeeda kabiirkuna yuqaabilu saqiir mid ka yar ka yasan عظيم baa ka soo horjeeda ka yarna kabiir mid ولهم عذاب عظيم قوي دائما ونزل في المنافقين منافقين تي marka waxa ku soo degay muslimiinta ilaahay wuxuu nabigu waxyooda quraankaasuna waa mid la rabay in la qabsado muslimiintana dastuurkoodii ahaa cidii marka muslimiinta aan ahayno laba sibay ula falgalaysa quraankaas iyo muxuu ahaay xaqaas qolo toos uga hortimid waa kuwan laga soo sheekay qolo aan toos uga hor imaanayna nifaaq samaynaysa qoladaasana qatar badan kuwiiba marka ilaahay sharxa wuxuu ilaahay yiri wa min an-naasi ba'dun wa anaga taa soo sharaxnay oo waa mubtadi wa bajamac oo mubtadada ama ka sifaynaysa ama mintii baa tabciid ka dhigaysa akhfash iyo ra'yigaas waa kuwa qabay oo minta tabciidka ah in yaani mintii tabciid ka dhigta markay tahay in ismi laga dhigo oo bimaana ba'dun wa min an-naasi ba'dun naasi dadka qaarkoodu man kuwa weeyaan yaqulu dhahay aamanna billahi baan rumaynay وباليوم الآخر نوان رمينا يوم القيامة لأنه آخر الأيام إلى مالمه بوجودن بيا أساسا مالنتي قيام لوجم وما هم بمؤمنين حال أيسن مؤمنين أيجو أيسن بأهين بيرساس شيئا أيان وحي مركا أي شيكتين بالردية لكن رديكو ما هو سيدي لفظ عبرين وكرئ لوجم الردية وحي أيجو يرهدين آمنا إلهي مردهن وما آمنوا ما أيسن رمينين ما أوصلهن وما آمنوا موسى جملة فعلية سوميسن عبيرين جملة فعلية جوابت من تنا مركا حيال ديرو جملة اسمية هالعبيري أو وحي نقونيسا إلى دوام بيتوسينيسا إيمان لآن بيبكو دائمين ما أيسان رمينين هدي العبير لها وحي كور موبي كري لحيد ويكور موبي لحيد معا وحي كور موبي كري لحيد إن وما آمنوا هذا كور ما يسان رمين لكن مركا إن رميان حالدان عيد ديكيسي ما يوما هم بالمؤمنين سيدو دبا هو إيمان يشم بأحبا مركا منتي حق اللفظ جواك المفرد معناها حق سنة جمع بين مركا نقوم كلها مركا ضمائر تلوسو علينا هيو مر لفظ جدال إلاليا يو مفرد كهو الإفرادية سيدي من يقول هو مرنا معناها لا إلاليا سيدي وما هم إلى منتي بالو علينا بمؤمنين واتلج يخادعون الله marka maxay u sheeganayaan waxaysan ahayn waa qodob mas'al inaysan iimaanka aysan yeelan oo iimaanka hoos ay ka inkirsan yihiin wixiina maxaa ku kalifaya to hore marka ilaahay wuxuu sheegay cilada qaa'iyada ah sababta ay hiigsanayaan marka ay saas leeyihiin maxay rabaan inay ku gaaraan natiijada ay rabaan inuu dhalato waa marka waxay u sheeganayaan midaan ah maxaa iimaan la'aanta ku kalifayna waxa ilaahay sheegay ciladii baacisada ahayd oo ku xambaartay baa aayada dambe lagu sheegay dooro marka ilaahay wuxuu yiri yuqaadicuuna allaha walladina aamanu halka marka su'aal baa ka imaanaysa yuqaadicudi waa qaadaca mudaariceeda oo faacala ah faacaladuna waxay tusin jiray asal u ahayd mufaacalo wax la isla sameeyo hadii ayagii faacil laga dhigay allahana mafcuul looga dhigay macnihi muxuu soo baxaya ayaga iyo ilaahay baa isdhakrahaya ومعنى صباحي دي أصل كلام فعل إسلا سمع أيجا إلهي بس هي مركاسا وحا إيمان إيسا لبس سؤالات ما شاء الله يسكوت مدوحة حويان مركا ورطة محاي مركا هوريتو أنت أنا سؤالها قالين خداع وحوي هاي مركا أنفهن سين إلهي الله تيرين كرا وحو كقيب قلي كرأيهين يا إنكلي أنا كلا فهم خداعي مركا كوفا السر هيبو وحويري والخداع ماشى حاشية أن يوهم صاحبه
qofku waa inuu qofka kala moodsiiyo khilaafa maa yuriidu bihi wuxuu la doonayo wax ka duwan buu moodsiinaya oo min almakruuhi dhibka uu qofka la rabo wax ka duwan buu moodsiinaya oo inuu wanaag la raba buu ekaysinaya liyuuqicahu suu fiihi dhibka ugu rido qofka min xaysu laa yashcur meel uusan ka dareemayn buu ridaya taas waa dhagartana muxuu marka asalkiisu ka yimid waa al-ikhfaa'u qarin weeyaan qarin wax la qariyo wa minhu waxaa ka mid ah al-akhdacaan waxa la yidhahdo oo maadadaas iyaguna ka socdaan qarinta waa cirqaani laba xidid oo mustabdinaani fi lcunuqi dhuunta hoos ahaan ugu jira wa minhu maqdacu lbeyti qolka guriga maqdaciisa meesha sii khaaska ah oo qayb yar oo kasii mid waxyaabaha nafiiska lasii gashado ayana halkaasi ka socota waa qarintaas macnuhu saas haddii marka macnihii saas aan u ogaanay ilaahay marka baa iyo ayagaa isdhagrahayo ilaahay dhagar miyaa loo tiirin karaa saas ilaahay baa wax qarinahaya ciddii wax u qarinahaya wax ay moodsiinahaya oo talbiis samaynahaya maya xasilaha kama soo kow midda kaleeto ayagiiyo laftoodii khidaac ilaahay ma ku samayn karaan waa maya saa waxba lagama qarin karaya taa marka jawaabteedu waxa weeyaan yuqaadicuunada horta mufaacta hore waxaa looga jawaabayaa mufaacalada loolama jeeda asalkii ficilkaa laga wadaa qirada kalena ku tusinaysa wamaa yakdacuuna qirada ah yakdacuuna qirada qirada kale ku tusinaysa oo thulaathiga cabiraysa midda kalena jawaabteedu waxa weeyaan allahada marka loo tiiriyo ayaga ilaahay ma dhakri karaan la leeyahay laba sibaa looga jawaabayaa waa rasuulka laga wadaayo oo mudaaf baa qadaran yuqaadicuuna waxay dhakrahayaan allaha rasuul allah ilaahay rasuulkiisay dhakrahayaan oo meelo badan baa tacdiim nebiga suuban la weyneynahayo booskiisa allah la dhigaa saa qofkii muxuu ahaaye muxuu ahaa ina aladiina yubaayicuuna allaha yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah kuwa kula mubaayicoonaya ilaahay ba la mubaayico man yudci rasuula faqad adaaca allah meelo badan baa ilaahay la dhigaa iyadoo loola jeedo nebiga suuban ikraam nebiga suuban la karaamaynayo ama waxaa dhacda sidii saas oo kaleeto aayaddii kaleeto waclamuu annamaa ghanimtum min shayin faana lilaahi khumusa khumus baa ilaahay leeyahy waa kii nebigu lahaaba ilaahay baa leh baa laga cabira ama maahane waxaa la leeyahay allah baaba loo toos ay ugu tiirsantaa mudaaf lasoo qadari mahayo laakiin waxaa laga wadaa yucaamiluunahu ilaahay bay waxay kula mucaamaloonahayaan mucaamalata almuqaadir sidii cid wax dhakraysa ay ula mucaamaloon lahaayeen bay ula bariirayaan ilaahay muslimiintan inaad ku darsan tihiin muxuu ahaye aad ilaahay ka qarisaan qof dhahayo kale la mid yihiin markaasuu wuxuu yidhi biidhaari khilaafi maa abdanuhu waxay qariyeen wax ka duwan muujintay muujinayaan bay muuminiintii ku dhagrayaanoo min alkufri liyadfacuu canhum say naftooda uga difaacaan axkaamahu kufriga axkaamtiisa addunya wamaa yukhaadicuuna buu ilaahay yidhi wamaa yakdacuunana waaqiro ilaa anfusahum naftooda waxaan ahayna dhagri mahayaan saa waxaa wabaala khidaacihim dhagartooda wixii ka dhasha caaqibadeedu raajicun ilayhim ayagay usoo noqonaysaa adduunyada waa ku ceeboobayaan yaftadaxuuna fi dunya biiطlaaci illaahi nabiyahu ilaahay nabigiisa inuu ogeysiiyo calaa maa abdanuhu waxay qariyeen bay kula ceeboobayaan wayucaaqabuuna fi laakhira aakhirana waa lagu ciqaab wamaa yashcuruuna mana ay dareensanaa maxaaleeyo walxaal maa yashcuruuna aysan dareensanayn inay wuxuu kusoo noqonahayaan dareenba aysan ulahayn taasay fii quluubihim buu yidhi tanna waa jawaabtii su-aashii kaloo ahayd maxaa iimaan la'aanta keenay fii quluubihim waxaa ku sugan maradun jiraa ku sugan maradka xaqiiqadiisii baan ku xambaari karnaa ama waxaan ku xambaari karnaa majaaskiisa haddii xaqiiqadiisa lagu xambaaro wuxuu noqonaya quluubtooda jiraa ku sugan sidii qof xanuunsan u xanuunsanahayo gacan laga hayo madax laga hayo baa qalbiga laga haya wadnaha xanuunahaya muxuuna la xanuunahayaa waa nicmadaana inkirsan yihiin iyo xasadkaas daraadiisa ama maradun baa ku sugan oo maradkii macnawiga ahaabaa laga wadaayo oo ciddii jiran sida aysan awoodu lahayn baan qalbigoodu karti u lahayn oo shaki baa markaas daciifiyey shakun wa nifaaq fahuwa yumridu wuxuu jirisiinahayaa buu yidhi quluubahum labadiiba wuu kugu fasir mar waa shaki iyo nifaaq macnihiiba kugu fasir haddana muxuu yidhi yumridu quluubahum nifaaqaas ku jira quluubtoodii laftoodu xanuun ku riday ay yudcifuha fazaadahum allahu maradan ilaahay jiruu markaa u ziyaadiyo bimaa anzalahu min alqur'aani
qur'aanka uu soo dejiyey sababtiisu u diiday likufri labadii ka rabta ku fasir ilaahay marad buu u siyaadiyey oo soo axkaamtaan dhibsan aymayn oo kamaysa shakisnayn axkaamtii waa lasii badinahayaa takaaliiftii baa lasii badinahayaa waxaana maanta laydinku waajibiyaa waa sii darsanaya haddaad kii xaqiiqiga ah ku fasirtinna maradkii baa alle u siyaadiyo waxay ku bugtoonayeen oo nicmadii nebiga suuban ee asxaabtu ku sugnaayeen baa sii badanaya walahum cadaabuna waa leeyihiin cadaabkaasoo aliimun mu'lamun laamta la kordhigo oo faciil bimacnaa mufcal ah oo isim mafcuul laga wado oo cadaabkii laftiisa hanuunka loo tirin cadaabkaasaa la xanuujiyey cadaabkii asaga la xanuujiyey maxaad moodaayo asagii isku dhib qaba ciddii gashana waa ku dhib acaadana allahu min bimaa kaanuu maadii masteriyo laga dhigo bimaa kaanuu inay ahaayeen daraaddeeda yukadibuuna nebiga suuban inay beeninayaan haddii la shido bitashdiidi ay nebiy allah wa bitakfiifi bimaa kaanuu yakdibuun inay been sheegayaan fii qowlihim aamanaa ay yidhaahdeen ay ku been sheegayaan waidaa qiila lahum taasu waa shuruucun dhexgelid buu fii tacdiidi bacdi qabaa'ixihim foolxumooyinkooda qaar ka mid ah tirin la tirin hayaa la dhexgelaya saddex marka foolxumoy ku kacahayaan buu ilaahay sheegay markuu ayaga soo sheegay sababtii nifaaqnimadan ku xambaartay iyo sababta qowlka inay sheegaan ku xambaartay si muslimiintu uga digtoonaadaan buu markaa sheegay wuxuu marka ilaahay yidhi waidaa qiila lahum ay lihaulaa'i kuwan munaafiqiinta haddii lagu dhaho laa tufsidu yaa ku dhahahaya waa inay soo jeeda cidda ku dhahday waa cid ku ogaatay inay gaalnimo ay aaminsan yihiin oo xumaantooda cid aragtay way cidda waxaas dhahaysaa waxaana noo soo socota in la leeyahay waidaa muxuu ahaaye aayaddan noo soo socota waidaa laquukum qaaluu aamana hadday adinka in la kulmaan iimaankooda waa caddaysanaya oo iimaan dhaba inay leeyihin bay caddaysanayaan cidda marka warka ku tiri waayo baa la isweydiin karaa gaal kale kuma dhahahayo fasaad joojiya waa dadkii muslimiinta ahaa bay ku leeyihiin baa ku dhahahaya ama nebigaa ku dhahahaya bay noqon kardhaa warkii soo kuwa qarsanahaya ma ahan marka see bay ugu dhahahayaan taa marka wuxuu leeyahay yacni ayagaa qarsoodigooda qof ay masalan rabaan inay ka fasaadiyaan iimaanka bay war ku qarsanayaan ama meel aysan malaynayn ayagoo gaaladoodii la jooga bay warkooda caddaysanayaan qof baa marka xogtii ogaanaya xogtii baa soo gudbaysa markaasaa nebigu wacdinaya ama qof kaloo muslimiintii ka mid uhu wacdinaya oo leeyahay war waxaan joojiya dadkaasaa ku dhahaya markaasay ayaga inkirayaan marka oo leeyihin saas maana ahayn markaasuu ilaahay yidhi haddii marka lagu yidhaahdo laa tufsiduu fi lardi horta fasaad marka hore muxuu yahay fasaadku waxa weeyaan buu yidhi shaygii oo ka baxa istiqaamada iyo toosnaanta iyo hagaagsanaantii shaygu inuu ka baxo markaas inuu shaygu hagaag ka baxo buu noqonaya fasaadka walfasaadu khuruuju shayi can alxaalati allaa'iqati bih waa shaygii oo ka baxa xaaladii u munaasibka ahayd haddii marka la yidhi laakiin laa tufsiduu fi lardi ardada ha fasaadinina macnaheedu muxuu noqonayaa dhulka wixii u munaasibka ahaa oo carrada ku fiicna ha ka saarinina see marka looga saaraa bilkufri watacwiiq can aliimaan saddex si baa marka lagu fasiray saddexdaasi mid waxa weeyaan ibnu cabaas baa ku fasiraya mujaahid baa ku fasiraya assudiyu shiikhaas la yidhaahdaa ku fasiraya oo waxa weeye buu yidhi ibnu cabaas xasan qataada iyo sudi kitaabkan aan ka kicinahayaa waxa weeyaan tafsiiru lkabiir fakhrudiin ulfayzi safxada 600 iyo juska koobaad 600 iyo muxuu ahaa juska labaad baan leeyahay 69 waana muhim waxaasoo ay ku fasiray sayiduna cabdullahi ibnu cabaas waxa weeye buu yidhi idhaaru macsiyati illaahi tacaala ardada ilaahay macsiyadiisa inaad ku muujisaan oo macsiyada markii la qarsaday markii la muujiyo waa kala duwan yihiin aad ardada macaasida iyo khilaafka shareecada aad dibadda la timaadaan taasa ku fasaadin maxaan ku soo farnay fasaadininadii ardada sidii ay ku fiicnayd ha ka bixinin way ka baxaysaa macaasida markii ardada marka lagu muujiyo sidii dhulka la rabay dadku inay nabad ku wada joogaan kala nabad galaan hagaagsanaadaan waa ka baxaysaa sababtana waxa weeyaan buu yidhi markii macsiyada sharaa'icda ilaahay jideynaya waa sunanun mawduucatun bayna alcibaad waa wadooyin iyo axkaam addoomaha la dhex dhigay oo ku kala nabadgelayaan haddii marka khalqigu qabsado sunnadaa ku dhego zaala alcudwaan tacadigii la isku xadgudbaa meesha waa ka baxay
ولزم كل أحد شأنه قف كستنا أرنتيسو قنتيسو قبسنيا فحقنت الدماء لجيالك ومركا لا إلالين وسكنت الفتن فتن تنوى حسليسا دولكي dadkii yaduna waa hagaagay ama idaa taraku tamasuka haday ka tagaan bisharaa'ic ila qabsado qof kastaana ku dhiirado calaamaa yahwaaha wuxuu jeclaa lazima alharaju walmaraj isdil iyo isku dhaxyaa iyo idraab baa imaanahayo saa darteed ba ilaahay wuxuu aayad kale ku yidhi fahal casaytum in tawallaytum haddaad iimaanka ka jeesataan ma laga yaabaa an tufsiduu fi lardi ardada ina habaysaan ilaa iimaanka wax xakameeya iyo nidaamka ilaahay u dejiya wuxuu ilaahay ku baraarujiyay mar hadday daacada ka tagaan inay marka ifsaadku ay ku dheeranayaan taaniyaha marka in macaasida la muujiyo dabada la soo dhigo carada waa fasaadinaysa tan labaad waxaa la yidhi fasaadkii waxaa laga wadaa waa mudaaraatu lmunaafiqiina lilkaafiriin gaaladii iyo mukhaaladatuhum macahum inay gaalada dhexgelahayeen oo dabacay u muujinahayeen oo isu xiisahayaan taasna fasaad waxay ku keenaysaabay markay gaaladii u leexdaan daahirkana muuminiinka yihiin maxay colkii nebiga suuban moodsiinayaan fartiina ay dirahayaan nebigu inuu liito dadka la socdaana dad ku mabdaa aysan ahayn ku muujinaya cadowga markaa ku dhiirinaya midda saddexaad oo lagu fasirana waxaa la yidhi asraartii nebiga faafinayay markaa fasaadinina ardada intaa midkood ha ku samaynina haddii la dhaho qaaluu waxay leeyihiin innamaa naxnu muslixuuna annagu keliya waxaan nahay kuwa islaax samaynaya walaysa maa naxnu fiihi bifasaadin ba maahan aan marka saddexdii macnoon soo sheegnay mutaabaqaysin labadii waliba ugu muhiimsanayd hore haddii la yidhi ardada ha ku fasaadinina macaasi inaad muujisaan markay jawaabeen oo yidhaahdeen anagu waxbaan hagaajinaynaa macaasidan aan samaynayna waxbaan ku hagaajinaynaa baa warkuu soo baxay yacni diinkii baysan aaminsanayn oo macaasidan inay diinka baabi'inaysa iyagoo og bay rabaan inay tirtiraan diinka in meesha laga saarana bayba waxay u arkaan inay islaax ardada u tahay ilaa diinkii ma aaminsana macnaheedu taasaasuu noqonaya saa darteed qofka hadduu yidhahdo macaasidii baan samaynayaa isu soo bax baan samaynayaayoo gabdho iyo rag baan isdhexgelinahayaayoo dumarkii baan qaawinahayaayoo wixii un socday muxuuna leeyahay markaas war islaax baan ka wadaa horumarin magaaladan ku horumarinaya magaalo waxaan ka dhigaya horumartay dalkan horumarinaya waa shaqadii munaafiqiinta kow ama markii la yidhaahdo war gaaladan aad mudaaraynaysaan oo samaansabaysaan oo aad yacni la qabsanaysaan oo dalka xaggoodii aad u jiidaysaan masaalixdii oo dhan markii la yidhaahdo ka joojiya waa fasaadi markay yidhahdaan innamaa naxnu muslimuun ujeedkooda muxuu yahay war wax isu soo dhoweyn baan wadnaa ayaan la kala cararin weeye anigu ujeedkaygu innamaa muxuu ahaayey sida aayaddii kaleeta ilaahay ku yidhi in aradnaa markay meel kale xukunka la aadaan intay diinka islaam ka tagaan munaafiqiintii suuratu nisaa noogu imaanaysa uu ilaahay yidhi waxay leeyihin in aradnaa ilaa ixsaanan wax wanaajin iyo wa tawfiiqan wax iswaafajin baan rabnay dadku yuusan kala cararin baan anagu ujeedkaygu ahaa qaaluu innamaa naxnu muslixuuna alaa innahum muxuu ilaahay markaa ugu jawaabay ayagu humul mufsiduuna kuwa un wax fasaadinaya waa ayaga tillaabooyinka ay samaynayaan fasaadkiisa walaakin laa yashcuruuna laakiin dareenkii baaba ka maqan ba ilahay waysan dareenkii oo dhan baa laga anfiyey waxaas waa wax iska muuqda inay fasaad yihiin waidaa qiila lahum qubxigoodii labaadna waa kan oo haddii la dhaho aaminuu kamaa aamana annaas dadku say u rumeeyeen u rumeeya annaasu waa la yaqaanaayo waa bini aadankiiba annaasu la dhaxaa kelimadu halkee bay kasoo ishtiqaaqantay waxay kasoo ishtiqaaqantaa layi min annisyaani ilowga oo bini aadanka waxaa insaan loogu magacaabay waa ilowga dartiisa mise kelimadu waxay ka timid baa layi min aliinaasi weheshiga oo bini aadanku way isweheshadaayo waa waxaas muuqdoo la weheshanahayo waxay rabtaa ka timaadee dadkii oo dhan buu ku dhacaa kelimadu loogu talagalay maantana ma la dhihi karaa sideedii ma ku dayn karnaa dad kusay u rumeeyeen ma dadkii oo dhan baa iimaan yeeshay ayagaaba dadkii ka mid ahoon iimaan yeelan laftoodii marka waxaa qasaba dad khaasa marka in laga wado dadkaasu marka maanta yeeyihiin waa dadka waxaa la dhihi karaa waa nebiga suuban salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa la dhihi karaa mufasirkaanu ku fasira waa asxaabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam ama waxaa la dhihi karaa bay yidhaahdeen waa ansaartii ilaa nimankaanu ansaar bay munaafiqiintaanu ka mid ah ansaarna muclamkeeda waa islaam marka iimaan oo dhan maahana iimaan ku qaydan iimaanka dadkaas kaamiliinta ah oo ay la yimaadeen oo kale oo ikhlaas watoon qalbiga bala kale in kugu jirin qaaluu marka jawaabtooda maxay noqotay anuuminu ilaa waxa ma rumaysnee oo anagu ma rumaynaa kamaa aamana sufahaa waljuhaal
safaha waxaa la dhahaa fudaydka baa la yidhahdaa oo lianna safaha khifatun wa sakhaafatuna ra'yi xumida iyo fudaydka taasaa la dhahaa waxaa la yidhi marka maxay u cabireen asufahaa waxay u cabireen oo sida yani khaaska ilaahay uga soo xigtay inay saas yidhaahdeen oo kelimada xulka la xushay waa kelimo yani mowqiceedii dhacday oo dadkii muslimiinta ahaa baa waxay u badnaayeen oo markii hore islaamay dad fuqaraa sidii Suhayb iyo Bilaal iyo raggaas oo kale marka kuwaas waxay yiraahdeen waxba kale ogeyn oo kale sidoo miyaan islaamay alaa innahum hum sufahaa bu ilaahay ayaga baa kuwii sufahaadii ahaa oo fudud ilaan ma aysan fiirsanoo shayga xaq ah oo waadix ah waa kuwa diiday walaakin laa yaclamuuna dalika laakin taa waysan ogeyn tii hore waxaa laga cabilaya shucuur dareen waa shay la arki kara fasaadku kana waxaa laga cabiraa cilmiguna waa shay daqiiq oo yani fakar u baahan marka inay iimaanku wuxuu rabaa adillo iyo fakar buu leeyahay midii saddexaadna waa kan oo waidaa laqu ladiina aamanuu kuwii muuminiinta ahaa hadday la kulmaana qaaluu aamanaa bay leeyihiin waa rumayn aamanaadan waxaa laga wadaa iimaan xaqiiqi ahaan rumayn ilaa ka kale waa lagu ogaa qalbigayga waa naga jira way ujeedka waidaa khalow hadday minhum muuminiintii ka keliyoobaan warajacuu ilaa shayaaiinihimna ay u noqdaan ru'asaa'ihim buu ku fasay kuwada madaxda wuxuu sameeyey yani ilaadu shay go-an bay ku tacalluqaysaa saas soo ku ama bimacnaa macaa laga dhigi karaa waa kaas dhahaya waidaa khalow hadday cidloodaan ilaa shayaaiinihim maca shayaaiinihim kuwadii shaydaanyaalka macooda ay la cidloodaanna ru'asaa'ihim baa laga wadaayo shayaadiinta shabahday sida ay u tamarudayaan oo u madax adeegayaan qaaluu waxay leeyihiin innaa macakum annagu adinka micina diinkan in kula jirnaa su'aal baa markaa iimaanka dhaco hata soodinkii iimaanka muujisanayay markaa muuminiinta la joogtaan qoladaa kale innamaa naxnu mustahzi'uuna annagu kuwa un jeejeesahayaan ahan bihi biidhaari aliimaan iimaanka la muujintiisa waa ku jeejeesay halkaa marka uu yidhi meeshaas wuxuu yidhi wasababu nuzuuli haadihi alaayati maa ruwiya waxaa la warshay weeye wa ana bna ubayin munaafiqii weynaa iyo asxaabtiisii baa waxaa u yimid nafarun min asaxaabati jamaaca nabiga suuban asxaabtiisa ka mid sallallahu alayhi wasallam say ugu naseexeeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi qoomkiisii unduruu kayfa aruddu haaulaa'i sufahaa kuwaa iska fudud buu yidhi oo aan aad u fiirsanayn saan idinkaga celiyo bal u fiirsad markaasuu abubakar gacantiisa qabtay markaasuu yidhi marxaban soo dhowow bisidiiqi wa shaykhi alislaam uma akhada biyadi cumara buu qabtay waqaala markaasuu yidhi marxaban bifaaruuqi alqawiyi fii diini ninkii xaq iyo baadilka la socay ثم أخذ بيد علي بوقبته فقال مرحبا بابن عم النبي وسيد بني هاشم فقال له علي باوحكير يا عبد الله اتق الله ولله كعبس ولا تنافق أنا منافق وبن فقال له مهلا وركادي يا أبا الحسن إني لا أقول هذا والله وركان ملي إلا لأن إيمان ما كإيمانكم إيمانك يقول إنه كينا لمدي ويا وحن وركان ولا يحيي واكلتكين فقال ابن أبي لأصحابي وحكير كيف رأيتموني فعلت سيدي أن كسمي ما أركيسي فإذا رأيتموهم هدارة فافعلوا مثل ما فعلتم هذا دبك إني كين ساس أقرر دب الآن فأثنوا عليه ويامانين وحي هذين لم نزل بخير ما عشت فينا أنت نقول ده نوش هاي خير كالزول مين الله إلهي با يستهزئ بهم هرتا جيسكي محوية مركو رأسك أن فسرن wuxuu yidhi istihzaahu waxaa la dhahaa buu yidhi alistihzaau bishay asukriya macnuhuna waxay ka soo jeedaa alhazw waa asurca degdegta bay ka soo jeedaa oo waxay dhahaan buu yidhi maata hazaa yahzau maata faj'atan tahzau bihi naaqatuhu baa la degdegaysa markaas marka waan fududaynahayaayo intaan ku jeejeeso oon war aysan aan dhab ahayn aan u muujiyo bay sida daahirka sadxiga isaga qaadanayaan fahankaas haabka kore ah waan fududaynaya ba ujeedku marka ilaahay miyaa saas u macaamila waxa laga wadaa bisuuq ugu fasiray yujaazihim istihzaa'ihim jeejoskooda ilaahay ku ciqaabaya oo mushaakala la yiraahdaayo lafdigii ka jawaabta waxa sidii wajazaa'u sayyi'atun mislaha xumaan la sameeyay waxa abaalkeeda ah sayyi'atun xumaan baa mid dambe waa yaani qofkii مثلا اسك دفاع كدول منها حمان بانا الى هيك سي ادي بو كعبر لفتي مانا اهن سي وا لفدي تاس ان با لغا عبر هور لغا عبر hadalku muuqaalka isaga ka wayamudduhum yumhiluhum buu ku fasira asagu ilaahay wuu u kaadinayaa waa u dheeraynayaa
muddada fii duqyaanihim qooqooda iyo xadgudubkooda tajaawuzihim alxadda xadka ay gudbeen baa ilaahay ugu kaadinaya iyagoo xadka dhaafay bilkufri gaalnimadiina ay ku xad dhaafeen oo markaa maddigii buu ka ahaaday maddigii oo dheeraynta waxa la dheereeya ahaa ama waxaa la yidhi madadkii buu ka ahaaday ziyaadada ahaa madadka markaas wuxuu noqonayaa yamuduhum macnahaasaana fiican buu leeyahay fakhrigu yamuduhum ilaahay wuu u sii badinayaa fii duqyaanihim xadgudubkoodii duqyaanku waa xadka in la dhaafo sida aayaddii kale ilaahay ku sheegay innaa lamaa daqa almaa'u biyihii lagu haftaynhayo weeyaane qoomkii nabi nuux markay xad dhaafeen sidii lagu arki yacmahuuna xaalay wareerahayaan oo iska noqnoqonahayaan wareer ay ku sugan yihiin yataraddaduuna way taradudahayaanoo haddii la yidhahdo see u taradudeen gaalnimadooda waaba u go'aan hoos bayba go'aanku gaalnimadoodu qataa waa taradudkii waxaa laga wadaa qaarkood baa shaki ku jira qaarkaas waxaa la tilmaamaya wuxuu marka ilaahay yidhi ulaa'ika kuwaa sifaadkaas lasoo sheegay lagu sifeeyey aladiina kuwii weeyaan ishtaraw addalaalata bilhudaa horta shiraha waa la yaqaano waa wax lasoo intii suuqa la tago masalan ba lasoo iibsado dalaaladiina waa macne ee shay lasoo gadanaya maaha hanuunkuna thaman wax lagu iibsanaya maaha saa darteed istabdaluu baa laga wadaa way ku bedesheen su'aal kalaa marka imaanayso qofku markuu wax bedelayo wax ku bedelanayo waxa uu iska bedelayo awal buu haystay soo macnuhu maaha marka waxay soo bixi lahayd haddii bedelashadaas ishtiraha lagu fasiray laftiisa xaqiiqadiisa lagu wado in la yidhahdo nimankaanu markii hore hanuunsanaayeen kadib bay marka baadiyoobeen istibdaalkiisaasu noqon kara manaba hanuunsanayn munaafiqiintaanu hanuunna soo marin markaasuu taasna looga jawaabayaa buu yidhi waa kaa xaashiyadu sheegahaye waxaa loogu jawaabahayaa bilhudaa bay ku bedesheen alladii hanuunkii kaana fii wuscihim ayaga itaalkooda iyo karaankooda ku jiray hanuunay heli kareen baa laga wadaa litamakunihim minhu ilaa waa makansadeen waa shay u suurtoobi karay marka maadaama waqad jacalahu allahu lahum bimuqtada alfitrati alatii fatara annaasa calayha sida ilaahay dadka ku abuuray qof kasta asagoo aan iimaankii u subadu dhalanaya marka waxaa laga wadaa iimaankii ayaga u suurtoobi karay oy u diyaarsanaayeen baa waxaa laga soo qaaday waxay haysteen oo kale waa kaas waxaa la yidhahdaa famaa rabixa tijaaratuhum ayaga ganacsigoodii tashbiihii baa lasii xoogeysay maadaama bedel qaadashadii iib laga cabiray tashbiihii noocaasaa baa lasii xoojiyey markaasaa waxaa la cabiray wixii iib ka dhalan jiray oo ribx ah ribxii marka waa ka anfisanaado faa'iida ma yeelan bilahi tijaaradoodii ma aysan ribxin haddana ribxi yaa loo tiiriyo tijaarada miyaa ribixda mise qofka tijaaraysan hayaa ribxa waa qofka waxa ribxa waa majaazka markaasuu ku yidhi maa rabixuu fiihaa tijaaradoodii kuma aysan ribxin ayagu ee waa ku khasaareen limasiirihim ila annaari almu'abbadati naar mu'abbad oo labad yeelay inay u noqdeen bay ugu khasaareen wamaa kaanuu muhtadiina wixii ay sameeyeen kuwa ku hanuunsanaa ma ahayno liduruqi tijaaradii ay is yidhaahdeen qamaarkii ay galeen wadooyinkiisii kuma aysan hanuunin nasiibkooda ma fiicnaanin adduunyadiina kuma rifin aakhirana hanuun ma helin masaluhum subxaana allah rabbana taqabbal minna